dafcaddii shanaad oo iskugu jirta hablo iyo wiilal kana kooban 260 arday oo ka kala baxay kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacaddu ayaa maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Golis ee Boorama waxaana munaasabaddan loogu qabtay hotel Sow ee koonfurta magaalada waxa badiba kala soo qayb galay madax iyo mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen isuduwayaal agaasimayaal maayir ku-xigeenka degmada Boorama culimadiin waxgarad aqoon-yahan bahda jaamacadaha Golis Boorama iyo Hargeysa haween iyo mudan kale barbilow waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin kooban ka bixiyay maamulka guud ee jaamacadda Golis ee Boorama xubno kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Golis ee Hargeysa macallimiin iyo mid kamid ah ardayda qalin jabinaya maanta ardayda halkan ka qalin jabinaysa waxay tiradoodu dhan tahay 260 arday 260 ka arday kulliyadaha ay ka kala qalin jabinayaan waxa kamid ah kulliyadda farmasiga oo 20 arday ka qalin jabinayaan kulliyadda nursingka oo 230 arday ka qalin jabinayaan kulliyadda midwiferyga oo 12 arday ka qalin jabinayaan kulliyadda nutrition and food science oo 450 arday ka qalin jabinayaan kulliyadda project planning and management oo ay 80 arday ka qalin jabinayaan kulliyadda accounting-ka oo ay ka qalin jabinayaan 15 arday kulliyadda computer science-ka oo ay ka qalin jabinayaan 35 arday kulliyadda law-ga oo ay ka qalin jabinayaan 14 arday waxay jaamacadda Golis saaka idin marag furaysaa inaad shahaadooyinka aad qaadateen ee la xiriira takhasusaaadkiina inaad sifo sharciga u haysataan oo la idin wareejiyay oo asaga ka qalin jabisay jaamacadda Golis maalintii aan Golis ka soo qaadanay Hargeysa Golis ballaman ka galay waxayna waxaan nahay jaamacadda ugu weyn waddanka ee private kuwii ballantii nala galay sidii uu ku sheegay fuliyay jaamacadda kaliya ee maanta jaamacadaha East Africa ku yaala accredited-ka ah waana la qiimeeyaa saddexdii sanaba mid baan mar baan la eegaa waa la evaluate gareeyaa marka evaluation kaas accreditation-kana lagu siiyaa waxaan isku dardaarmaynaa cabsida Ilaahay waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican anigoo afka macallimiinta ku hadlaya waxaan idin ballan qaadaynaa inaan marna idinka haraynin talo iyo tusaale iyo tagaadin kolba siduu u raadiyo ciddii khibradda uga lahayd ee ka horeysay isagoo la tashanaya qaabka shaqooyinka loo raadiyo aqoonteena haddii aynu ka midho dhalino tuujino waxaynu keenaynaa shaqooyinka badan ee yaalla wadamada kale loo shaqo tago intaa kadib hadalka waxa ka daba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kala soo qayb galay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad mabruuq dhammaan qalin jabiyayaasha waxaan leeyahay ugu horeyn hambaliyo annaguna waxaan ku dadaalaynaa in platform la suuro geliyo qofku u fududeeyo inuu shaqo ka heli karo meel ka baxsan magaalada Boorama labaad waxaan balyeynaya ardayda qalin jabinaysa waalidkii ku soo tabcay dambeyn waxaan idinku dardaarayaa inaydan la seexan cilmiga aad barateen qarankiina ku soo celisaan idinkuna la fiihin ugu dadaashaan maanta qalin jabinaysana kuwii barakoobay wax noqda ee meel gaar ah idiga dhigo inaad dadaalkan maanta halkan aad ku soo gaadheen aad si laba laabtaan ugu dambeyntii ardayda ayaa mid loo guddoonsiiyay shahaadooyinkooda suxufi cisqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal